hay-adda caalamiga ee Care International ayaa maanta wejigii labaad mashaariica horumarineed ee ka waday guud ahaanba gobolka Sanaag mar kale ku soo bandhigtay mashruuc cusub oo loogu magac daray Store kana qayb qaadan doona isku xidhka bulshada 20 tuulo oo ismaada degmada Ceergaabo. Waxaana munaasabadii daafurkaasi ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka degmada xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka, madaxda hay-adda Care ee gobolka iyo saraakiil kale iyo xubnaha gudiyadaasi. Waxaana ugu horreyntii halkaasi ka kala hadlay Xasan Cabdi Shir oo ka hadlayay afka mas'uuliyiinta hay-adda Care ee gobolka ayaa ku dheeraaday waxqabadka mugale hay-adda Care ee ka hirgelisay guud ahaanba gobolka iyo weliba Maxamed Daahir oo ah madaxa mashruuca isku xidhka bulshada ayaa waxa hadaladoodii kamid ahaa sida tan. haddii la eego hay-adda Care gobolka Sanaag waxay ka shaqeynaysay in ku kooban ama ku dhow iminka 5 sano. 5 sano hay-adda Care waxay ka qabatay gobolka Sanaag shaqooyin fara badan oo dhinacyo kala duwan taabanaya sida arrimaha bulshada, xoojinta bulshada, waxbarashada, waxyaabaha la xiriira arrimaha bulshada tabaaleysan in kor loo qaado. Hadda waxaan gobolka ka wadnaa 5 mashruuc oo mashaariic uu ku jira mashruucan cusub oo soo kordhay. haddii aan mashruuca wax ka sheego waxa la yiraahdaa Somaliland towards reaching resilience oo ah in mataqaana la gaarsiiyo bulshada Somaliland adkaysi ku saabsan dhibaatooyinka soo gaadha. Mashruucu waxa uu aad ugu takhasusayaa dhisitaanka iyo isku xidhnaanta gudiyada iyo degmada sidii tababar loo siin lahaa, sidii ay shaqooyinkooda bulshada ay u horumar lahayn. waxa uu aad muhiimad u saarayaa in gudiyada oo la adkeeyaa ay ka qayb qaadan karaan dhibaatooyinka soo gaara bulshada xagga mataqaan abaaraha. qaybtii saddexaad mashruucan waxa uu ujeedahan takhasus ku siinayaa cilmi baadhis loogu talagalay. waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xubno isugu jira xildhibaano isduwayaal ayaa dhinacooda si weyn u soo dhaweeyay mashruucaas iyagoo dhinaca kalena uga mahad celiyay waxqabadka mugale hay'adda Care ka wada guud ahaanba gobolka. waxaana sidoo kale halkaasi lagu soo bandhigay cajalo dhugmatari oo ka hadlaysa isku xidhka bulshada iyadoo ugu dambeyntiina halkaasi wada jira uga hadleen maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Jaamac. Care International waxay ka qabatay gobolka cidina kama qaban marka runtii sheego haddii la eego xagga tacliinta dhinac kastaba waxa horumarka oo dhan wax weyn bay ka dhinacan mashruucyada inta ay sheegay 5 mashruucna 5 waxay ka socdaan gobolka aad iyo aad waxaan runtii ugu mahad celinayaa hay-adda Care oo intii aan gobolka joogay aan ku arkay mashaariic aad u badan oo ay ka samaysay meel kastoo aan maro inta badan waxay sameeyeen mashaariic horumarineed oo gobolka wax weyn u taraya. Cali Aadan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo.